maayir ku-xigeenka magaalada Boorama mudane Cumar Ilaaye Jimcaale oo maanta warbaahinta kula hadlay Hotel Sow ayaa si weyn uga beediday doorashadii xisbiga wadani oo Hargeysa ku qabsaday taasoo lagu doortay xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cidda ugu tartami doonta xisbigaasi sheegayna inayna xisbigaasi wax cadaalad ah oo xisbigaasi uu ku doortay hoggaanka musharaxiinta aysan jirin waa kan Cumar Ilaaye Jimcaale oo guud ahaanba sheegaya sababihii iyo sidii ay ku soo saareen xisbigaasi wadani ilaahay baa mahadle marka hore waxaan isugu yeeray bahda saxaafadda shirkan jirayd in aan kaga hadlo dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliland gaar ahaan tii xisbiga wadani runtii ururkan xisbigan wadani markii ururada la doonayay waxay ahayd gobolkan Awdal gaar ahaan magaalada Boorama halkii aan ku gardaadinay waxaan ka mid ahaa amaan hogaaminay dhalinyartii hay'adatay markii kunka qof la doonayay iyadoo aan gaarin 9kii subaxnimo 5,000 qof u soo diyaariyay gudoomiye Ciro marka waxa weeyaan xisbi buu noqday ururkii waanu ka soo saaray waana loo haweynaa dhammaan Soomaaliland laakiin barashoorteeda ay nicin bay Soomaalidu tiraahdaa Soomaaliland oo dhan iyo dadka dimuqraadiyadda taageeray way ka dhareegsan yihiin wixii ka dhacay sidoo kale Cumar Ilaaye Jimcaale ayaa sheegay taageerayaasha Axmed Muumin Saad garabka taageersanaa ee xisbigaasi ka jabay inay xukuumadda Soomaaliland wada hadal kula jiraan wada hadalladaasina muddo dhow ay soo afmeeri doonaan waxa uu sheegay waxaan halka ka cadeynayaa dhammaan taageerayaashii xisbiga wadani gaar ahaan intii mabaadi'da dimuqraadiyadoonka iyo madax banaanin ogoleyd in ay ka tashanayaan hadda aayahoodii gaar ahaan cidii dabada ka riixaysay Axmed waxa jirta in maxkamadda ay bilaabmi doonto at same time codkii dadka taageeraya Axmed taageerayay in wada hadalladu ay bilaabmeen xisbiga talada haya ee kulmiye aanan cod dambana lagu khasaarin doonin maxaan ku idhaahdaa meesha dadka lagu feerayo ee lagu afduubanayo wada hadalladaasi hadii sida ay u socdaan ay u wanaagsanaadaana wax meel fiican bay noo marayaan halkaas ay talada maraw isgarab dhigay mas'uuliyiinta musharaxiinta oo ah xisbiyada wadani iyo kulmiye ayaa wuxuu ku sifeeyay sida tan hoggaanada xisbiyadaas oo jirta dad wuxuu ku ololeyn jiray Muuse waa nin dagaalamaya xisbigu waa sidani waxaynu aragnay kaliya Ciro dagaalamaya laakiin Muuse oo meel ku dagaalamaya meynaan arag waxaan halkan ka cadeynayaa xisbigan wadani shuruuc baa jirta iyo nidaam la maro wixii oo dhan hadii ay la dhaafay waxa imanaysa ucidii aan ka soo saaray isagoo maxkamadda horteeda taagan Ciro shalay oo fikirka waliba Axmed la yimiday labada kursi soo qaateen oo isagu talada keenay in laga baxo waxaan maadaama ururada la furayo urur la furto ucid maxkamaddu bay ku dambeey jirtay waxaan u ballan qaadayaa Soomaaliland inay ku dambeyn doonto maxkamadda awalba farac ka yimiday buu haa ucid anagu baa heerkan gaarsiinay taageerayaashii xisbiga hadaan ahayn meeshan doonaan joogno dal iyo dibadda waxaan ballan qaadaynaa inaan halkii aan ku gardaadinay aan ku gowraci doono oo ku dambeyn doono maxkamadda sida imikaba ay tahay ay ku noqon doonto halkeedii halkaas ay ku gabagaban doontaa maxkamadaasi ayayna ku gabagaban doontaa xisbinimadii xisbiga wadani waxa kale oo hambalyeynaya Maxamed Cali oo isagu ah nin aan wax dambiye gelin haba yaraatee waan soo dhaweynaynaa cidda kaliya aan ogolaan doono inuu gobolka soo galo waxa weey ninka la yiraahdo Maxamed Cali oo isagu wax dambiye gelin waayo isaga un baa labadoodaba isku garaacay oo yiri adna musharax baa tahay kaalay labadiinuba ugu dambeynna isbaahaysigii xisbiga wadani ku soo biiray oo hore kulmiye uga soo jabay ayaa uu ku tilmaamay kuwa cadaalad darrada iyagu horseeday sidoo kalena xisbiga wadani xafiisyadii dibadda iyo dalkaba uu ku lahaa sidoo hadalka u dhigay guud ahaanba inay taageerayaashu soo afmeeri doonaan calanka xisbigaasi ee haatan ka babanaya xafiisyo badan uu sheegay waa sidoo hadalka u dhigay inay dalka iyo dibaddaba ka furan yihiin ay ku bedeli doonaan calanka xisbi waxaan u sheegayaa Ciro iyo intan
qolada fulinta isku sheegtay cusub ee meesha timiday ee afduubka la timiday waxa idin yaala halkan oo soo dhaweynay ma jirto albaabadu waxay u furan yihiin oo kaliya xisbiga kaliya gobolkan awda gaar ahaan Boorama u furan yihiin waxa weeye ama labada musharax ay u furan yihiin daaqadaha iyo albaabada ee farsaha iyo heensahooga ay u diyaar yihiin kaliya waxa weeyaan mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka qaranka mudane Cabdiraxmaan Saylici fariintaasaan u dirayaa cid kaliya musharaxiinta kaliya waa xisbi kale oo maanta waxaan ku dhahdaa cod lagu aamini karaa ma jiro waa xisbiga kaliya isku xidhay bari iyo galbeed ninka laba hotel kala doortay ee kala kaxeeyay Somaliland isku keeni maayo wixii halka ka dhacay baana idin muuqata ninka joogay golihii sharci dejinta shalay tooliye ku feertamay hadii dal loo dhiibana dalkoo dhan buu wada feeray marka waxa weeyaan waxaan halka ka cadaynaynaa cid kaliya ee farsaha iyo heenso ay diyaar yihiin noqon doonaan aakhirka Cabdiraxmaan Saylici iyo mudane Muuse Biixi Cabdi mudane hori dibadda ka yimiday runtii halkan kuma ekeeyna waxa jirta ilaa dhowr iyo 30 xafiis inaan ka furay dibadaha inta midna arimo furin laakiin dadka fikirka wanaagsan ee aan qaadanay watay oo isxilqaamay baa furay iyaga kireeyinka ku bixin jiray jeebkooda ka bixin jiray intaas oo xafiisna dhamaan wixii qaadaan iyo taageero looga baahdo way u soo diri jireen xisbiga waxaan sameyn doonaa markay wada hadalada noo socda xisbiga talada haya ee uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi ay noo gabagaboobaan waxaan rajaynaynaa in dhamaan waxyaabihii aanu doonaynaa ka helay waxaan ku bedeli doonaa calankii oraajka ee xafiisyada dibadda sudnaa calanka kulmiye hadii lahaydmo waxaana socda shirar hoose kuwa Hargeysa ka socda jira kuwaanu halkan ka wadnaba jira marka waxay noqon doontaa waxa lagu guurayayna wax cad oo balaaran oo aan qof iyo labana ka talinayna dhamaan dhinacyada lahayd tooliye waxaad ogeydeen xisbiga inay ku soo biireen niman ka tirsanayay ama lahaa shirkii xisbiga kulmiye wala afduubay ama cadaalad darra jirtay horta tusaale waxa ugu filan qolada laftooda waxaan oran lahaa de shalay toole shirka maba ayna joogine oo wixii ka dhacayna banaankaabad ka joogteen walow aan anigu oran karo shirkaasi uu ka dimuqraadiyad badnaa ama uu ka ii sheeg musuqmaasuq yara kan hadda ka dhacay de hortiinaabay ka dhacday oo idinkaaba goobjoog u ahaa waxaan oran lahaa waxa fiicnaan lahayd hadda taa shalay ka hadlayseen aad banaanka ka joogteen tan hortiina ku dhacday inaad ka hadashaan waxaana malamaad fahmin ujeedadeyda kumaan oran anigu waan ka baxay wadani waxaan ku sheegayaa laakiin xisbigii majarihii loo waday in laga leexiyay waxaan ku sheegayaa kaliya waxa weey taageerayaashii xisbiga wadani in loo leexin doono codkoodii meel lagu haleyn karo laakiin meel kuma sheeginna ka waxa kale oo ku sheegayaa markii anu waxa ka tirsanaa golaha dhexe xisbiga wadani sanadii 3 bilood ka hor baan saadaaliyay waxa hadda dhacaya waa la keenay kaarkii ka qaybgalka mana aan tagi shirkoodii kamana aan qayb galin waxaana ilaa waqtigaaba wada hadalada noo socday anaga xisbiga kulmiye waxaana ii muuqatay waxaan dad badan u muuqanin rag badan oo aan u sheegayna intay la soo hadleen maalintii dhaweeytay bay yiraahdeen niyo waxaan ku weydiinay mafaaliya tahay faaliya ma yihiin laakiin say wax u socdaan ayaan arkay baan ugu jawaabay bahayd marka waxa weey say wax u dhacayaan hadaladan ka soo yeedhay maayir ku-xigeenka magaalada Boorama oo ah xildhibaan hore uga soo baxay xisbiga wadani ayaa waxay muujinayaan quusta ay ka taagan yihiin taageerayaasha garabka xisbiga wadani ka soo goostay ee uu hogaaminayo mudane Axmed Muumin Seed iyo inayna xisbiga wadani dib dambe waan ayna ula galaynin waa Hori Axmed Hori shabakada caalamiga ee Boorama News magaalada Boorama.